kulankani waa mid tilmaamo ahmiyadda iyo mudnaanta ra'iisul wasaare Roble siinayo horumarinta caasimadda Muqdisho ayuu xafiiskiisa kula yeeshay guddoonka maamulka gobolka Banaadir kaas oo ku saabsanaa dardargelinta howlaha iyo adeegyada shacabka magaalada u hayo maamulku horumarinta bilicda caasimadda sugidda amniga iyo sidii wax looga qaban lahaa biyaha fariisanaya wadooyinka marka uu roobku da'o iyadoo casharo laga baranayo rababkii muddooyinkani ka daayay magaalada ayaa diiradda lagu saaray kulanka dhex maray ra'iisul wasaare Roble iyo maamulka gobolka Banaadir ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa hoggaanka maamulka gobolka Banaadir ka dhageystay warbixin ku saabsan waxyaabihii laga qabtay dhibaatooyinkii ka dhashay rababkii xilliyadani ka daayay magaalada oo saameyn ballaaran ku yeeshay wadooyinka iyo bilicda caasimadda gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish ayaa uga mahad celiyay ra'iisul wasaaraha kulankan muhiimka ah isagoo sheegay in maamulkiisu uu ka howlgeli doono sidii wax looga qaban lahaa bilicda amniga iyo dib u dhiska caasimadda haddana ay qabteen howlo badan si xoog ah karti ah isku filnaan ah ayaan uga hortagnaa oo aan isku daynaa inaan maareyno mar haddii hawsha aad wajahaysaa ay tahay hawl ka culays badan ama ka tan badan adiga ma suuroobayso waqtiga ugu habboon inay hawshaas ka soo dhamaato muddadii la soo dhaafay roobab isdaba joog ah ayaa ka da'aya magaalada Muqdisho taasoo ahayd caqabada noogu weyn oo aan wajahayno kuwaasoo biyo dhigay inta badan wadooyinka muhiimka ah magaalada Muqdisho daadadkaas aad iyo aad ayaan ula rafanay aan ula tacaalnay waxayna bareen inaan isku tashano aan sameeyno sewage system oo runtii ahaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee magaaladan ay lahaa jirtay laakiin burburay sewage-kii qayb badan ilaa 5 degmo waa ku guuleysanay systemkooda oo mataqaanaa waa la maareeyay kasoo bilow Boondheere qayb ka mid ah warta nabadda waa beri Xamar Jajab Xamar Weyne biyahoodaas daadadka halkii ay wadooyinka fariisan jireen waxay galeen badda waxaan wadnaa hadda mid kale oo runtii aan rajeynayno inay iyaduna kaafin doonto dhowr degmo oo ay ka mid yihiin Hodon iyo Waaberi iyo degmooyin kale kuwaas oo ka socda degmada Waaberi iyo degmada Wadajir iyo degmada Hodon taasoo aan rajeynayno dhawaan inay naga soo dhamaan doonto ayna xalin doonaan biyihii fariisan jiray wadooyinka runtii dadaaladaas way socdaan balse waxaan u sheegnay ra'iisul wasaaraha isaguna aad iyo aad uga garaabay sida ay lagama maarmaanka noogu tahay garab aan ka helno xagga xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo muujiyay mudnaanta uu amnigu u leeyahay bulshada ayaa ku booriyay maamulka gobolka in dib u habeyn ay ku sameeyaan layrarka wadooyinka ku xiran si aysan uga faa'iideysan mugdiga kooxaha nabadiidka ee argagixisada ah inaan dardar gelino howlihii shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho ay naga sugayeen ayaa ku saabsaneed waxaana kamid ahaa in aan aad u soo celino bilicdii iyo wanaagii ay lahayd magaaladan Muqdisho waana waajib dhamaanteena wada saaran kol hore waxaan la kulmay gudoomiye ku-xigeenadii maanta caraf uma yeelan maanta tiim cusub ayaa joogo tiimkan cusub ayaan waxaan rabaa inaan kala dardaarmo sida ugu dhaqsiyaha badan inay soo sameeyaan daraasad ku saabsan dhibaatooyinkii magaalada ka dhacay ay ugu horeeyeen daadadka waxa ay ka tageen qashinka iyo wasaqdii la socotay iyo magaaladan sidii loogu heli lahaa dayactirkii laamiyada ay roobabka baabi'iyeen daraasadaas ayaan ka sugayaa hadduu alla idmo sida ugu dhaqsiyaha badan oo ah sabdiga maanta sabdigiisa kale inay ii keenaan waxaana taa barbar socoto inay aad u adkeeyaan xoojiyaan maxaa la dhahaa shaqadii ay hore u wadeen oo ah nadaafadda iyo howlahaas dayactirka ah ayaan ku wada hadalnay waxaana sugayaa tiimka cusub hawshaas baaxadda leh inay qabtaan waa ogahay waa hawl cusub waa tiim cusub oo hawl cusub iyo baaxaddeeda waqtigan uu ku yaryahay marka iyagana waxaan leeyahay dadaala waana cusub yihiin waxaan rajeynayaa inay si wanaagsan uga soo baxaan garab iyo gacan ay siiyaan gudoomiyahooda Cumar Finish
saad ogtihiin guddoonka gobolka banaadir shacabkan magaalada ganacsadeeda waxay bixiyaan canshuur iyagana xisaab ayay naga rabaan inaan celino oo ah in magaalada ay noqoto magaalo agabkeedii wixeeda dhan u dhammaystiran yihiin marka taasna waa inaad mas-uuliyaddaas qaataan oo aad ogaataan inay canshuurtaas bixiyaan dib loogu celiyo waxa ay idinka sugayeen ay idinka helaan waxaan iyagana ka codsanayaa ganacsatada inay gacan siiyaan gobolka banaadir oo waqti xasaasiya lagu jiro inaad gacan ku siisaan oo kulan wada yeelataan iyagana oo usoo jeediyey waxaan kaloo rabaa in maxaa la dhahaa ay aada uga taxadaraan amniga magaalada muqdisho meelo badanoo amnigeeda aada u baahan yahay in la sugo meelaha wadooyinka aan leerarka lahayn si aysan kooxaha nabadiidda argagixisada aysan uga faa'iidaysan oo magaalada bilicdeedana wax ka tarayso amnigeedana wax ka tarayso leerarkaasna dib loogu soo celiyo way ku dhegan yihiin saan qiyaasayo laakiin waxay u baahan yihiin dayactira u baahan yihiin amniga gaarka ay magaalada u baahan tahayna waa tan maxaa la dhahaa in isha lagu haayo oo qof kastoo Soomaali ah gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho ay aada u adkeeyaan amnigoodii iska ilaaliyaan argagixisada midaas waxaan kaloo usii raacinayaa in ay aada u feejignaadaan waxyaabaha magaalada ka dhici karo oo ah maxaa la dhahaa inay nabadgelyo darro ay ka dhacdo iyadana ay ka digtoonaadaan shacabka waa shacabkeennii waa inay isha ku hayaan annagana waxaan ballan qaadnay inaan shacabka markasta garab taagannahay saas ayaan idinka rajeynayaa dhammaantiin inaad hawshaas ka qayb qaadataan wabillahi towfiiq Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.